kulanti wanaagsan daawadayaal qodobada ugu waaweyn ee xanta wararka oo idin hayo waxa kamid nabadoon Kismaayo lagu diray iyo shaki badan oo hareeyay geeridiisa wasiirka Kenya oo saxiixay heshiiskii badda ee Soomaaliya oo war muhiim ah soo saaray fashil ku yimid wada hadaladii lagu xalinayay xiisada ka taagan magaalada Beledweyne qaramada midoobay oo war cusub ka soo saartay xiriirka dawladda Soomaaliya kadib ceerintii Haysom khilaaf soo kala dhacgalay gudoonka baarlamaanka Hirshabelle iyo mooshin laga abaabulay Jowhar iyo xog laga helay geerida madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada wararkeena oo kooban daawada hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar oo furo gambaleelka hadii aad ka hesho warkeenana like saar oo aragti hoos noogu reeb aynu ku bilownay warar dheeraad ah waxay ka soo baxayaan dil mid kamid ah nabadoonada ku howlan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Jubbaland xalay loogu geystay magaalada Kismaayo nabadoonka la dilay ayaa la sheegay in koox hubeysan ay ku toogteen magaalada Kismaayo waxaana lagu magacaabay jiray Cabduqaadir Ibraahim Xasan geerida nabadoonka ayaa qaar kamid ah waxgaradka oo aan arintan kala xiriirnay waxa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin naga siiyaan sababa amni awgood madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii lagu diray nabadoon Cabduqaadir Ibraahim Xasan oo kamid ah waxgaradka deegaanada Jubbaland waxaana hay'adaha amniga uu amray in si degdeg ah gacanta ugu soo dhigaan kooxdii dilka u geysatay Jubbaland ayaa sheegtay nabadoonka ay dileen ururka Al-Shabaab madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sheegay in laamaha amniga ay ugu fadhiyaan gacan ku soo dhigida cid kasta oo ku lug yeelan karta dilka nabadoonka waxgaradka oo si hoose noola hadlay waxa ay sheegeen in shaki badan ay ka qabaan dilka nabadoonka iyada oo nabadoonka uu aad u ololeynayay isbedel ku yimaada hoggaanka maamulka Jubbaland madaxweyne Axmed Madoobe ayaa mar kale u sharaxan xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland waxaana bilihii u dambeeyay aad u soo tirayay cadaadiska la saarayo odayaasha ku howlan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Jubbaland odayaasha qaar ayaa iyaga oo baqdin qaba awgeed waxa ay u hoggaansameen amarka madaxweynaha Jubbaland waxaana sidoo kale magaalada Kismaayo ka socda cadaadis lagu hayo musharaxiinta isbedel doonka ah ee kursiga kula tartami doonta madaxweyne Axmed Madoobe xogan la helayo waxa ay sheegayaan in nabasugida Jubbaland la marsiinayo cid kasta oo musharax u ah kursi baarlamaan waxgaradka qaar ayaa sheegay in qofkii uu arko madaxweyne Axmed Madoobe inuusan ka helin codka uu isticmaali karo hay'adda nabasugida taas oo eeda u diidaya kamid noqoshada baarlamaanka ku soo oogi karta musharaxiinta ayaa sheegaya inay u baahan yihiin doorasho madax bannaan oo Jubbaland ka dhacda taas oo lagu la tartamayo Axmed Madoobe inkastoo Axmed Madoobe uu dadaal xoogan ugu jiro in mar kale uu ku soo laabto kursiga madaxweynaha maamulka Jubbaland dilka nabadoonka ayaa waxgaradka waxa ay tuhno badan ka qabaan inaanu ka baxsaneen maamulka Jubbaland inkastoo ay suuragal tahay in ururka Al-Shabaab ay ku lug yeelan karaan haddana Kismaayo waxa ammaankeeda si weyn u sugaya ciidamada maamulka Jubbaland waxaana dad badan ay calaamad su'aal dul dhigeen sida suuragal ay ku tahay in koox hubeysan oo ka tirsan Shabaab ay dil xilli fiid ah ka geystaan isla markaana si nabada ay isaga baxsadaan iyadoo ciidamadii ugu badnaa Jubbaland hadda ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo maadaama xilli doorasho ay gali doonto magaalada ammaankana si weyn loo adkeynayo wasiirkii Kenya oo saxiixay heshiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa war muhiim ah soo saaray wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dawladda Kenya Moses Wetangula ayaa ugu baaqay madaxweyne Uhuru Kenyatta in si toos ah uu muranka xuduudda badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya uu uga hadlo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo senator Wetangula oo ah ninkii Kenya u saxiixay heshiiskii badda ee Soomaaliya ee 2009 ayaa sheegay in Soomaaliya qayb weyn ka qaadato dhaqaalaha Kenya loona baahan yahay in xal laga gaaro khilaaf kasta oo keeni kara inuu xumaado xiriirka ganacsi ee labada dal waxa uu ku dooday in Kenya dhaqaale fiican ay ka hesho lacagaha ay hay'adaha caalamiga ah oo ay kamid yihiin qaramada midoobay iyo kuwa safaaradaha Soomaaliya ay u soo mariyaan Kenya waxa uu tilmaamay in lacagahaasi kaashka ah ee loo soo diro Soomaaliya ay Kenya ka hesho lacag badan waxaan markasta dhahnaa ma dooran kartid cidda dariska kula noqonaysa dariskaaga markasta meeshiisa ayuu ku yaalaa mararka qaar waxaad yeelanaysaa xiriir subag ah
mararka qaarna xiriir qabow ah ayuu yiri Wetangula. Waxa uu dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ugu baaqay inay cashar fiican ka bartaan sidii loo xaliyay murankii dhanka xuduudda ee ka dhaxeeyay dowladaha Tanzania iyo Malawi. Waxa dhawaanahan jiray khilaaf la mid ah midka u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya oo u dhaxeeyay Malawi iyo Tanzania kaas oo ku saabsanaa muranka ku aadan xuduudda Lake Nyanza taas oo u dhaxeysay labada dowladood ee Tanzania iyo Malawi. Waxaana Tanzania ay doonaysay inay halkaasi kala baxdo shidaal halka Malawi ay diidaneed iyada oo sheeganaysa inay leedahay. sida laga soo xigtay Wetangula, khilaafkii ka dhaxeeyay dowladaha Malawi iyo Tanzania ayaa la soo dhameeyay markii ay labada dowladood madaxweynayaashooda arintaasi isku xil saareen isla markaana ay u magacaabeen guddiyo ay hogaaminayaan wasiirada arrimaha dibadda ee labada dowladood kuwaas oo ugu dambeyn wada hadal ay yeesheen xal uga gaaray khilaafkooda. qaramada midoobay waxay war cusub ka soo saartay xiriirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib ceerintii Nicholas Haysom. sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa niyad wanaag ka muujiyay xiriirka siyaasadeed ee dhanka dhaqaale xiriirka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee u dhaxeeya qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya 6 bilood kadib markii Soomaaliya ay soo ceerisay ergigii qaramada midoobay ee Nicholas Haysom. kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Afrika ayaa hadalkan jeedisay kadib markii ay soo gabagabaysay safar 5 maalmood qaatay oo ay ku tagtay Soomaaliya kaasi oo ujeedadiisu ahayd in sidiisa caadiga ahayd loogu soo celiyo xiriirka labada dhinac. Kate ayaa sheegtay in wada hadaladii ay la yeelatay madaxda Soomaalida diiradda lagu saaray hanaanka siyaasadda iyo kan dhaqaalaha ee dalka iyo xiriirka qaramada midoobay ee Soomaaliya. waxaan ka wada hadalnay maamulka siyaasadda aaska nidaamka federaalka iyo sidoo kale xaaladda dhaqaale ee dalka ayay Kate ku tiray bayaan uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. safarkeedii ayaa yimid dhowr toddobaad kadib markii qaramada midoobay ay erga cusub u soo magacowday Soomaaliya kaas oo ah James Iswine oo u dhashay dalka Mareykanka kadib 6 bilood oo dalka uusan u joogin ergey. xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday markii Soomaaliya ay bishii Janaayo ee sanadkan soo ceerisay ergigii qaramada midoobay Nicholas Haysom oo ay ku eedeysay inuu faragelin ku sameeyay arrimaha gudaha dalkeeda. khilaaf cusub ayaa waxa uu soo kala dhaxgalay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka kadib markii gudoomiye Cismaan Barre uu baarlamaanka fasaxay isla markaana uu xiray kulamada baarlamaanka isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. hase yeeshee tallaabadaas ayaa waxa ka hortimid gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise iyada oo sheegtay in xiritaanka kulamada baarlamaanka uu yahay sharci darro. kulan ay Jowhar kula yeelatay xildhibaanada Hirshabelle ayaa waxa ay sheegtay in aanay ahayn sax qof ka maqan kulamada baarlamaanka ama xarunta baarlamaanka in uu fariin qoraaleed ku xiro kulamada baarlamaanka isla markaana aanay dastuurka Hirshabelle meelna uga qorneen in message lagu xiro kulamada baarlamaanka Hirshabelle. Canab ayaa sheegtay in arintaas ay aad uga hortimid iyadoo ay jiraan mudanayaal ka mid ah golaha baarlamaanka Hirshabelle oo arintan ku taageeray. waxaa sidoo kale soo ifbaxaya guux ah in mooshin ka dhan ah Cismaan Barre uu ka dhex bilowday magaalada Jowhar iyadoo xildhibaanada qaar ay durba bilaabeen mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle. xildhibaanada qaar ayaa ku eedeeyay gudoomiye Cismaan Barre in inta badan uu xagaldaacin ku hayo baarlamaanka Hirshabelle iyada oo xiisad culus ay ka taagan tahay gobolka Hiiraan loona baahnaa in baarlamaanka si joogto ah u shaqeeyo. Cismaan Barre ay ku eedeeyeen in uu fariisin ka sameystay Muqdisho oo aan inta badan isku howlin baarlamaanka Hirshabelle iyo arrimihiisa. taas ayay sheegeen inaanay suuragal ahayn in uu sii hayo hoggaanka baarlamaanka Hirshabelle. dhinaca kale waxaa fashil ku yimid wada hadaladii ka socday magaalada Beledweyne ee lagu dhameynayay xiisada ka taagan magaaladaasi. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa kulan uu ku dhexmaray xildhibaano iyo wasiiro ka socda maamulka Hirshabelle iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. kulanka ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray sidii xal buuxa looga gaari lahaa khilaafka ka dhashay xilka qaadista Yuusuf Dabageed isla markaana xiisad ka abuurtay magaalada Beledweyne. hase yeeshee la sheegay in kulankaasi uu fashil ku soo dhamaaday. wararka aynu helayno waxa ay sheegayaan in
xubnaha xildhibaanada iyo wasiirada Hirshabelle ay isu dabageed ka dalbadeen in uu wareejiyo xilka ha yeeshee uu taasi ka biyo diiday waxaana fashilka uu ku soo dhamaaday kulankaasi keentay in labada dhinac mid kastaba mowqifkan kale uu diidan yahay uu miiska la tagay xiisadii ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyihii gobolka Hiiraan ayaa weli ka taagan magaalada Beledweyne waxaana madaxweynaha Hirshabelle uu sheegay inuusan dib uga laaban doonin xilka qaadistii uu ku sameeyay dabageed iyada oo madaxweynaha Hirshabelle uu ku adkeysanayo in gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan uu yahay gudoomiyaha xilka uu magacaabay warar kale waxa ay sheegayaan in Yuusuf Dabageed uu ka baqanayo hadii uu aqbalo xilka qaadista in lagula xisaabtamo geerida tarihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan oo la tuhmayo inuu ka dambeeyay khilaafkiisa islamarkaana isku dhacyada ciidamada dhexmaray ay tahay mid salka ku haysa diidmada uu diiday xilka qaadista iyo xiisada uu geliyay gobolka Hiiraan ugu dambeyntiina xog la helay waxa ay shaki gelinaysaa geerida madaxweynihii hore ee wadanka Masar Maxamed Mursi sida ay sheegtay dawladda Masar madaxweynihii hore wadanka Masar Maxamed Mursi ayaa shalay ku geeriyooday maxkamad ku taala magaalada Qaahira oo la soo taagay halkaas oo uu ku miirbeelay si kastaba waxa uu li taagan shaki laga qabo sax ahaanshaha sida ay dawladda u sheegtay qaabkii uu geeriyooday qoyskiisa iyo kuwa taageersan ayaa dalbanaya baaritaan caalami ah oo lagu sameeyo geeridiisa wiilka madaxweynihii hore ee wadankaasi Masar Maxamed Mursi Cabdullaahi Maxamed Mursi ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in ilaa iyo hadda aysan qoyskiisa ogeen halka lagu hayo meedka aabiis waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale mas'uuliyiinta Masar ay diideen in madaxweyne Mursi lagu aaso xabaalaha qoyskiisa Mursi ayaa waxa uu qabay dhibaatooyin caafimaad oo badan oo ay ka mid yihiin cudurka macaanka iyo xanuunada beerka ku dhaca waxaana la sheegay inuu u dhintay cuduradaasi iyadoo lagu eedeynayo militariga talada haya wadankaasi inay sameeyeen dayacaad ku aadan caafimaadkiisa taas oo keentay in ay sii liidato xaaladiisa caafimaad sanadihii u dambeeyay waxa jiray warbixino kala duwan oo sheegayay in si xun ay ula dhaqmaysay dawladda Masar oo xitaa marar badan lagu jirdiray gudaha xabsiga madaxweynaha wadanka Turkiga Erdogan ayaa ku eedeeyay militariga wadankaasi talada ka haya ee uu madaxweynaha ka yahay Abdel Fattah al-Sisi in ay mas'uul ka yihiin geerida madaxweynihii hore ee wadanka Masar Mursi taas oo uu sheegay in xuquuq badan uu lahaa uusan ka helin dawladdiisa isla markaana ay u baahan tahay xaaladan baaritaan heer caalami ah warkii aad kala socoteen janalka xanta wararka wanaga inta daawadayaal hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar oo fura gambaleelka hadii aad warbixinadeena iyo wararkeena ka heshana like saar oo aragtidaada hoos ku soo qor